السلام عليكم جايز وين السلام يا dad badan baa waxay soo weydiiyeen Naciima qabarta maxaa kaaga dhacay meel kasta waa ku barartay guys waxaan ku hay erlaji qoraxdii baa iga dhacday soo qoraxdii baa saa ii gashay so thank you so much in adiga wal washeen laakiin qoraxdan erlaji ku ahay so that's it waan wada bararay halkan waan ka bararay oo jeedaan waan ka bararay guys inaba waxay soo weydiisay waxay tir horta makeup-ka ku marsan marka aad travel garanayso waa makeup qurux badan walaal thank you makeup ma ii marsanayn laakiin waxay ii marsanaa waxa la yiraahdaa sun lotion iyo wajiga baan dhaqay thank you so much baan ku leeyahay adoo maadsantahay su'aasha kale ay soo weydiisay number 2 waxay tiri qofka marka uu operation kala sameeyo cuntadu ma u furmaysaa oo normal wuxuu noo cunaya horta walaalo waliga inaad normal wuxuu cunto oo sidii hore horta wuxuu cunto horta haba sugin because maxaad operation ka u sameeynayay hadii aad rabto inaad sidii hore wuxuu cunto soo sidii hore inaad wax ka bedesho ma aha of course that's why sidii hore marnaba kuma noqonaysid laakiin step by step marka 1 year iyo adigu 6 bilood 3 sano 4 sano meelaha marka joogto waxa laga yaabaa inaad wixii cuni jirtay half ka cunto laakiin hadda half xataa kama cunaysid wax yiriisa bas la ka cunaysa ma fahamtay soo walaal noloshaada sama ku noqonaysid haduu ilaahay wada ka dhigo soo wakaas inaad waxa kala soo weydiisay waxay dabar xanuunka aad ka xabanayso walaal dhakhtar ma u tagtay walaal macaan waxaan ku jiraa fasax soo dhakhtar uma tagin laakiin markan saa guriga ugu noqdo haduu ilaahay wada ka dhigo adigu 23 bisha waan joognaa haduu ilaahay nabad geliyo gurigi soo markaas ayaan dhakhtarka sida ugu dhaqsaha badan ugu noqonayaa oo ugu tagayaa because dhabarka kaliya xanuunay halkaas caloosha maaragtay waxaad waran mooda saa iga taagnaya dad maxamed anu gadaal ka soo baxayo saa laba xarig maaragtay saa la igu jiidayo xataa sidaas maaragtay taas noqonaya xataa saa uma kala bixin karo ee qoortayda so markan tareena ku soo soconay waxaan lahaa baastada cuntiday balaneeski adduunka cuntiday baastada horta waxaan ku noqday xaalad dhahaa side effect bay u samaysay baastada ma cuni kari marka baastada israahdo waxay ku dhacayaan biishada baastada marka saa u cuno hal qaado ama maaragtay afar xabo yar aan saf ku galiya calaaliya cuno dhareer baa soo daadanaya sidii qof maaragtay dhareer isjiidanaya waliba like qof markuu yalaaligodo qals wax kama soo daataan dhareer oo isjiidanaya marka dana mataga kuma xijiyo dhareer baa soo daadanaya mataga ku xiga soo one joojiye baastadan ma arki kari ishaana ma saari kari أول بدخل كل حجر باسطة فول كونكا أما باسطة براونكا عن باسطة عادها عنين لكن إذا أنت إلا شيء أنكم ناقص باسطة معوني كري بريس كنا ما بروبين هرت واحد معلم بنو مرني ما كان تلقي سوس عنينا بروبي وسجن بريس كحجة واحد مدن كعوني كري لكن يا عادوا ما تلحت لي سو قرص اللي مدك لو حياته لا لعبة الحانشين حرق ير أول هو هيل بأكل شيء مقطع هذا حياته حرق ير اللعبة مو شيء حرق ير اللعبة أساسا أول هو ما الحانشين حرق يريس حرق كلب معها حرق أي نقطة أوكي وحياة بدن بس كبدلية وحمكاد عهدي له I don't know إنه وحكي كده ما أوجي because of ميزان كمان ما أنا ميزانين أيوة تفتح وانكم قناة استحيلات أنت بيشدوا لها ودول كده وقولت من هذا إنها كدي مركز بنسف يعني في ميزان دونا لكن واحد ما داوتش كي إنه كدعي هلب يدون كنا واعرف كم بنو ملايا وتجي واحد ما دا إنه هلب كدعي أوكي waxa kale jirka iska bedelan idin sheegaya halkan aan idin soo dhigay sawirkay markii hore calooshaydu waxay ahayd calool adag oo ma aragtay saa u buufsano de buuran hadda way isku guda dhaxday huluq markaas waxay yeelatay laabaye yiriis hadda waa caloosha dhimeed saa u tigsanaydo waxaan ku guriyaa tigga ah ida moosan oo kala lahayd way isku duntay hadda shub ay noqotay faanteen taa waxay ka dhigantaa maybe in hilibka dhacay soo idinku de ii soo sheega bal what do you think guys هيلب علشان هيلب عند هذا ولا إذا ما دعن لكن side effectنا وحن هلي محل ده بس تذكر for example معوني كري لكن الحمد لله رب العالمين وحول بالحمد لله هو أيه ده بدن أيه وحكوا ضحى يعني ما عرفت نعيم محد السمايسي نعيم محد وجمع سوي ذي جمع سوى أنت سود على صدق على بعض صرفان مرنا هيلب بجد عين مرنا يسوي كوري this is my way وأنا جو حسمي وأوبريشن كي واتشر كي قف لما بدها وحلا جاي بقى قبر صاحب الدعاء إني ما عرفت أوبريشن صوص سميسو وكل صوص سميسو وإيده هي اللي بدنا كدعنا وكادعي واي حدا قف ما بهنا إن الشيء جاي أوبريشن كم حال لها قف كم جيس أنا الشيء لكن هبلا بدنا بقى صاحب لي وصاحب بقى هي أنت يسرعين أي تركي جتجين وحي صوص سميستين على وش على جسوا شرا أو أوبريشن جاي كل صوص سميستين operation markay soo sameystaan guriyahooda ku noqdeen
waxaan ku iri hablihii waxay sameeyeen maxaa la yiraahdaa inan waxa ka dhacday so many kilos baa ka dhacay waxay noqotay dhuuba dhex yar qurxley markaas intii turkiga tagtay hadana calooshii iska soo goysay xaragiidii maaragtay sare maaragtay excess ka haw mama make over soo samaysa ma fahamtay oo Tommy tax soo samaysa gabadhii kalena inay wax ka dhacaan daayo ku sii kordheenba marka tan waxay leedahay waa khasaaray tan waxay leedahay yaa joojiya marka qofna qof lama mid aha we are big different when kala nahay dhamaanteen waa kala duwanahay qof kale ha ku dayanin hays oran hebel baa samee hays oran Naciima samee you have to inaad ka soo goodo you have to inaad eegto jirkaaga ma qaadan karaa waxan because waxaad u diyaar garoobaysaa risk dad fara badan baa waxay dhahayaan easy way baad samaysaa this is not a easy way absolutely not a easy way this is the difficult way you know why because of waxaad gashay suuxdimaad waa lagu suuxiyay inaad xataa ka soo noqon doonto suuxnimaadkii in kale ilaaha og waa big risk weeyaan big risk xataa in complication ku dhac weeyaan jir uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku sameeyo isku complete ku sameeyo badhan jaraysa so don't say what easy way don't say hiblaya sameeynaya you have to inaad samayso hadii adiga ay ka soo go'do oo aad ku adkaysto adan cidna ku dayanaynin that's very important weeyaan guys operation kan waxa la socda loneliness waxa la socda boring waxa la socda ilkaambi waxa la socda dhibaato waxa la socda oohin waxa la socda ilmo waxa la socda wax kasta ayaa la socota you know why waxa soo sameynaysaa because marka xanuunsato wad wax dadam xaqiiqeeyay marka cuntada dadku cuni kari waa cunto wax dadam xaqiiqeeyay waxyaabo fara badan maskixiyan kama diyaarsani aniga wali xada kama diyaarsani laakiin hadda right now I am starting to accept waxyaabadeedin accept gareeyo for example dadku markay waa quraacnayaan ay quraac ajiiba soo qaataan aniga dibban soo eega waxaan dhahdaa Naciima intaas kugu filan intaad cuni karto ka cun sababtu ay tahay waad ogeyd dhibaatadii aad u soo martay operation kan soo haduu ilaahay alxamdulillah intaaba ku soo gaartay naftigu ku jirto Naciima jooji hada for example kale waxay idin sheegay dukaamada markaan tago meesha nacnac aan arko nacnac iyo dunki because aniga waxaan jeclahay macaanka ayaa halka ay dhigay qofba macaanka halka dhigay qof inta badni baa meel dhigtay aniga macaanka halka maanta ay dhigay oo ma aragtay operation igu kaliifay oo baruurta ay saaray waa macaanka so markaan dukaanka joogay aan maaragtay meelaha macaanka la mara meelaha qaybta macaanka joog laba jeer bay saas igu dhacday aan naftayda qabto waa markii ugu horeysay intaan socdo oo aan aado macaanka aan hadana naftayda ku iraahdo Naciima ha sameeyay tabeedna aan wadada ka maray ka socday ka tago it was absolutely nice absolutely good so yar baan soo accept gareenayaa isla Naciima waxaan waad sameysay ha sameeynin waxaad cuni kale iska daa wixii ku dhibay iska daa علشان maskaxdii wax madan soo accept gareenayo laakiin gabadh waliba yeesan oranin Naciima sameysay ilmo iyo ilkaambi ee wax walba ka dambeeya guys hays oranin guys maxaa la yiraahdaa wax walba saasan ku sixdo ku soo kacay waa quruxay waa adduunyo because anigu qofka kaliya ee Soomaaliyeed ee ka hadlay operation kadib banaanka soo dhigay waan ahay because weligii waxa igu taqaaneen inaan runta ka hadlo hadii halka la iga goynayo I don't care dad baa waxay soo galaan lacag inay YouTube ka qaataan oo ma aragtay dadka wax ka sheegaan oo dadka daba ordana bilayaan aniga waxaan soo galaa runta bes leena sheego runta bes le exactly so that's why I am runta idin sheegaya this is not the easy way this is a difficult كفكرة aniga maanta waa arbaca bari waa khamiista bil bay ii tahay alxamdulillah already bil ayaan gaaray so that's why baan maaragtay usoo qubaysanaya bari toolo badda u galaya badda maaha leega meesha biyaha macaani maraan ma galayo meesha ciyaalkii waxaas ku dabaashaan meesha fara badan leh because sababtaan usoo marin waxay tahay dad baatay ciyaal yar waxbada doonaan ku xarxaar biyaha soo haddaad leedahay nabaro caloosha ha gelin meesha dadka badan ay galaan waxaad kale oo boorsada ku qaadataa hand sanitizer ku qaado marka suuliyada galayso suuliyada iskaga buufi dadka suuliyada kula isticmaalayaan fasaxa ku jirto hadii kale gurigaaga waa caadi ma ogtahay soo fasaxa markaad joogto you have to be careful nabarada aday ku furan yihiin sidoo horta u malayn maayo Soomaali operation gashay inay dhoofto anigu waxaan qofka ugu waalan baanaay operation intuu galay calooshii dhameed la jaray oo tuubo yar caloosh ku haysta hadana waxaan ku dhoofayay baabur ku wareegay bad meelaha wada waafaya so
waxna waan ka bartay ma sameyn doono haddii ilaaha wadala ka dhiga because it's very difficult weeyaan waan sameeyay carruurta u sameeyay because waa ugu ballan qaaday xasib ballankii ha ka bixin laakiin iga dambeeyo ha sameynin markaad operation gasho gurigaaga iska joog gurigaaga isku baxnaani because adiga oo bacteria meel ka soo qado operation kuma aragtay meelii ku dilaacaan baa kugu daran so aniga bahasha han sanata sarkasan say soo dabas so waxyaabo fara badan baan idinka sheekeynayaa waxyaabo fara badan baan insha Allah idinka sheekeyn doonaa how I feel now how I feel good because I'm accepting calooshaydi waan accept garanayaa calooshaad markaad accept garaysay ku jeclaanaysaa wax waliba ku hagaagayaan laakiin calooshaydi hadda waan soo accept garanayaa weli I'm not ready here because markaan arko dad cuntada cunaya markaan arko wax waa macaan I'm like was ilkaan baa imanayo madax xanuun baa imanayo oohin baa imanayso xiil baa imanayo laakiin alxamdulillah I'm still wax yar waan soo accept garanayaa because sulkaas la gooyay ma dhihi karto igu soo kaba moogta ma lagu kaba karo mid kale habla waxay dhahayeen gastric bypass baa loo sameeyay maxaa la yiraahdaa hilibka uu nagu soo noqday hadduu gastric bypass lagu sameeyay kama caloosha la marin habaabiyo waxaad samaysan kartaa gastric sleeve laakiin haddii gastric sleeve aad samaysatay gastric bypass ma sameyn kartid waa games over gacanta la gooyay ma la soo celin karaa ma isaas oo kale waa so that's why you have to accept it because ma dhihi kartid caloosheedii ugu tolo waa ka walaacay ma dhihi kartid you can't so you have to accept waa ku qasbantaa intay doontaa kugu qaadateen guys I love you so much and idin leeyahay insha Allah meeshii baan joognaa waa tegayna maanta waxaan tegaynaa meel yar oo la dhaho Venedig so khayr idin rajaynaa wixii su'aalaan xagga soo qora waa ka jawaabiyaa bye bye